Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaa mar walba ummadda Soomaaliyeed ku salaamayaa salaanta islaamka meel walba ay adduunka ka joogaan. Salaanka bacdi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u jeclahay, bilqalbi ayaan u jeclahay. Waa dad dhiigayga ah oo aan ka dhashay, aan ku faano meel walba adduunka aan ka joogo. Markii ay qof i weydiiya yaa tahay, waxaan ku jawaabaa isla markii aanan u fakirin Soomaali. Taas ayaa igu sababaysa in aan Soomaalida aan ka dhashay iyo macala waddankaba aan jeclaado, iyo macala weliba dadka waddanka noo xukuma ama na xukuma annaga Soomaali haddaan nahay ayaan jeclahay. Intaas markaan ka gudbo, waxaan leeyahay aan mar walbana aan ku soo celcelinayaa, waxaa mar walba aan ka daalaynin inaan ummadayda iyo siyaasiyiintayda iyo jamiica Soomaaliyiin say walba u yaalin inaan wax u sheegi karo amaam allah insha allah. Si aan su-aalahaasi igu badanin ayaan rajaynayaa in aan cadaalad u ahaado dadkayga Soomaaliyeed, aanan kala saarnin, inana kala saarneen insha allah tabaaraka wa tacaala, aynan isku wada mid ii ahaan doonaan insha allah tabaaraka wa tacaala. Intaas markaan ka gudbo, waxaan rabaa in aan si kal iyo laab ah in aan la wadaaga rabaa siyaasiyiinta ishaysata ee siyaasadda isku haysata. Runtii waxaan dardaaran aan u sameyn lahaa, mar walbana aan ugu baraarujin lahaa sidii waddankoodii khilaafka ugu yareyn lahaayeen. Khilaaf waa jiri karaa, madaxdana way isnici kardhaa, meel walba ay adduunka ka joogaan. Adduunka oo dhana khilaaf ama mucaarad la wada yeeshtaa, laakiin mucaaradnimada ma aha in waddanka lagu burburiyo, midna ma aha. Siyaasi walba oo hubeysan oo hub haysta ma aha in uu dagaal sameeyo ama waxyaalahaas oo kale. Siyaasiga waxaa la gudboon ama oo la fiicana waxay tahay in qofka uu kasoo horjeedo siyaasaddiisa dhaliilsan yahay. Adduunyada waa la horumaray maanta, dadka adiga u talin lahayd oo waa shacabkuye, waa inaa usoo bandhigtaa barnaamijkaagii oo kusoo jiidanaysid mucaaradkana. Qofka aa mucaaradka ku tahayna aa usoo bandhigi kartid waxaad mucaarad ugu tahay, si markaasi lagu taageero aa u heshid. Haddii maanta adigoo oo wax yar ciidan aa haysatid oo dagaala sameynaa, fawdan kicinaya aa dhahdid, biduuni sabab, waa laga fiican yahay. Barnaamijkaaga ha ahaado barnaamij baraarujin ama barnaamij ku guwaabinaysid shacabka, aa u sheegaysid oo kusoo jiidanaysid, waa inuu ahaada barnaamijkaaga. Siyaasi marka waxaad ogaataa mar walba waddankaas inaa maanta uusan u baahneen in aad dagaal aad ku samayso. Siyaasi waxaad ogaataa wixii laga soo gudbay foosha xumeed. Haddii adiga wixii laga soo gudbay aa horumar ku gaartay aa u malaysid, haddana inaa ku laabatid inaa horumar aa kusii gaaraysid aa ku fikiraysid, kuma gaaraysid. Maxaa yeelay waxaa maanta awood yeeshay ciidankii qaranka Soomaaliyeed, oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed lagu magacaabo jiray ayaa xoogaystay oo isku wada mid noqday. Maanta si isku wada mid ahna gacmo wada jir bay wax ku gooyaan bay Soomaalida ku mahmaahdaay. Ay isku duuban yihiin maanta ciidankeenii Soomaaliyeed, aynan marna tafaraaruq lagu sameyn karin. Waqtigii qabiilka ahaa waa laga soo gudbay. Siyaasi waxaan ku oran lahaa, ilaahay dartiisaan kuu jeclahay, mucaarad ahow, muxaafid ahow, igama go'did, dhiigaygaa tahay, laakiin waxaan kuu sheegayaa ummaddan dhibaataday ka soo baxday mar labaad yaa lagu celinin. Ilaahay ha looga cabsado ummadiisa. Soomaaliyaana la yiraahdaa, dagaal iyo rafaad waa kusoo daalnay, waa kusoo dhibtoonnay. Maanta waa loo jeedaa Muqdisho sida ay u horumarayso. Ciddii ka dambeysayna jazaahumullahu khayran aan leeyahay, ilaahay ha ka abaalmariyo. Waxaase ka dambeeyey dadaalkaasi ninka ugu horeeyo Cabdulaahi Yuusuf Axmed, kasoo bilow Cabdiqaasim, alla khayr ha siiyo, waa ka cararay magaalada, waa laga buriyey. Cabdulaahi Yuusuf xoogoo wax dhaqaajiyey, Sheekh Shariifa wax ku daray, Xasan Sheekha wax ku daray,
ninka hadda ugu dambeeya maxamed cabdulaahi farmaajo sii wado wax ku daraya. marka muqdisho way sii dhismaysaa, caasimadii dalka laga hogaaminayay weye. marka waxa waaye waxaan leeyahay wadankaasi ha loo turo. mar walba waa kusoo celcelinayaa, hadalkayga ugu dambeeya wuxuu noqon karaa mar walba uu noqdaa wadankaas ha loo turo, shacabka ku nool ha loo turo, ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado. dhiigga muslimka waa la adkeeyey, marka dhiig badan baa la daadinaya. xata alaana waxa waaye dhiig baa la daadinaya, dhiigga daadintiisa ha la yareeyo. ittaqullah xayثumaa kuntum, haddaad tihiin siyaasiyiinta soomaaliyeed noocyadooda kala duwan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aakhiru kalaami waxaan leeyahay wadanka ha loo turo, wadanka ha loo turo, wadanka ha loo turo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.